caruuriyo ciroole dadkuu wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسن dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka raadiyaha Simba ee magaalada Muqdisho ururka caafimaadka wacan markale dhageystayaal waa habeenimo Arbacaha talaadana ay sii bixayso taariikhdana ku astaysan tahay 12 bisha February sanada 2019 barnaamijka caafimaadka waa barnaamij toddobaadkiiba caaw kale aad ka maqashaan idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho barnaamijka caawa waxaynu ku eegi doonaa cudurka kolera ama sidii Soomaalidu inta badan u taqaano cudurka daacuunka isagoona toddobaadka nagala qayb gali doona Dr. Jibriil Xasan Cawaale soo saarista iyo tobinta anigoo ah Bahji Cabdullaahi Salaad Bahji Ismaar waxa dhanka farsamada ka qaabeynaya injineer Sakariya Cabdullaahi Maxamed dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale barnaamijka toddobaadlaha caafimaadka idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho وهاجاك dhageystayaal aynu ku bilownay barnaamijka caafimaadka oo aan kaga hadli doonaa toddobaadkan cudurka loo yaqaan kolera ama cudurka daacuunka daacuunku waa cudur ay sababto bakteeriya ama jeermiska loo yaqaan Vibrio cholera oo sababa shuban biyood bulshada ku dhex faafa badanaa waxa la dareemaa mushkilada koleraha markuu safmar dhaco oo dad badan ay u dhintaan qofka markuu qaado jeermiska wuxuu huurinayaa dhowr saacadood ilaa iyo maalin waqti la eg oo markaa kadib ay soo bixiso calaamadihii cudurka hadii la helo shuruud dhowr ah shuban biyood baan qofka ilaa 40 jeer oo galay suuliga oo xigo matag fuuqbax muruq xanuun iyo kaadi yaran baa ugu muhiimsan calaamadaha laga arkayo bukaanka hadii bukaanka markaas uu si degdeg aan loogu celin biyihii ka baxay waxa dhacda inuu u dhinto fuuqbaxa 40% inkastoo caalamka horumar weyn ka sameeyay xagga sayniska daryeelka caafimaadka haddana daacuunka weli adduunyada khatar weyn ayuu ku hayaa xagga caafimaadka siiba dalalka saboolka ah ee hanaanka caafimaadkoodu hooseeyo bulshaduna la'dahay horumar iyo daryeel caafimaad oo tayo leh sida ay sheegtay laanta caafimaadka adduunka ee WHO cudurka daacuunka wuxuu ku dhacaa sanadkiiba dad tiradoodu lagu qiyaasay 1.3 ilaa 40 milyan waxaana u dhintay calaamadahan sanadkiiba dad gaaraya 22,000 ilaa 143,000 qof kuwaas oo u badan wadamada qaaradda Afrika koonfurta Asia iyo koonfurta Mareykanka South America haddaba si aynu wax badan ugu ogaano isla markaana sida uu u saameeyo bulshada Soomaaliyeed waxaan wareysi kooban la yeeshay Dr. Jibriil Xasan Cawaale ugu horeyn Dr. ku soo dhawaad barnaamijka caafimaadka idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho waan ku dhawahay waa mahadsantahay Dr. Sabahja magacaygu waa Dr. Jibriil Xasan Cawaale waana ku dhawahay barnaamijka toddobaadka caafimaadka idaacadda Simba maanta insha Allah kulay wixii aan bulshada u gudbi karno u gudbinaynaa insha Allah Dr. Jibriil toddobaadkan nasiib waxaad u yeelatay in aad nagala soo qayb gasho barnaamijka toddobaadlaha caafimaadka idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho haddaba Dr. dareenkaaga waa sidee maanta wallahi waa ku faraxsanahay cilmiga waxaan wax u barano waxay tahay inaan bulshada u gudbino waana meesha kaliya maanta wax lagu gudbi karo intaas oo boqolaal kun ama dad ay ku gaarsiin karto waa idaacadda inaan u mariso idaacadaha waana wax fiican waana ku faraxsanahay aad baan soo dhaweynayaa aad baad u mahadsantahay Dr. maadaama aad ka mid tahay dhaqaatiirta Soomaaliyeed mid ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgala isbitaalada magaalada Muqdisho maanta aad nasiib u yeelatay barnaamijka toddobaadlaha idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho Dr. inta badan dhaqaatiirta Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin kaliya dhakhtar in la noqdaa in lecturer jaamacadeed la noqdo ama isbitaal kaliya laga shaqeeyo bulshada Soomaaliyeed waxay u baahan tahay dhaqaatiirtii wax baratay in yacni wacyigelin u sameeyaan bulshada Soomaaliyeed
marka dhaqaatiirtiina waxaa loo baahan yahay inaad bulshada u sameysaan promotion health ama wacyigelin bulshada maanta waxay u baahan tahay waa idinka ima uu bato wacyigelinta waxaa yaraanaya cudurada bulshada Soomaaliyeed affect gareynaya marka dhaqaatiirta Soomaaliyeed maxaad kula talin lahayd inay sameeyaan wallahi waxaan kula talin lahaa dhaqaatiirta Soomaaliyeed waxa bulshadeena dhibaato ku haya waxa waa cudurro wax looga qaban karaa wacyigelinta lagu yareey karaa in bulshadii laga wacyigeliyo oo cudurro laga hortagi karo oo inta badan ku yimaada waxyaalo bulshada ay sameeyaan marka waxaan leeyahay waxaaba ka muhiimsan in micnaha lagjar kaliya la bixiyo in bulshadu wax u baran waa dalkeena in bulshadu mar walba laga wacyigeliyo waliba cudurrada aadka noogu badan waa cudurro u baahan wacyigelin fara badan marka waan kula talin lahaa dhammaan dhaqaatiirta Titore toddobaadkan miiska waxaa inoo saaran in bulshada Soomaaliyeed aan wax badan ugu faa'iideyno cudurka koleerada ama Soomaalida inta badan sida u taqaano daacuunka hadaba Titore waa maxay cudurka daacuunka cudurkan koleeraha loo yaqaan ama daacuun calooleedka ay dhahan Soomaalidu waa cudur micnaha infection ama cudur ku dhaca dheefshiidka si degdegna ku yimaado waxaana keena jeermis loo yaqaano Vibrio cholera waana waliba nooc kamida oo loo yaqaan Vibrio cholera O1 ama hal wax loo yaqaano midkaas ayaa keena cudurkan loo yaqaan daacuun caloolaha waxaana aad loogu yaqaanaa oo caan ku yahay shuban biyood fara badan oo qofka ama dadka u nugul ay u dhiman karaan oo dilaay ah hadana qofka markaas laga gargaarin wuxuuna u dilayaa wax loo yaqaan fuuqbax inuu ku dhaco qofka cudurkaas ayaa badanaa Soomaalidu marar badan ku soo laabtay wadankeena qaasatan gobolada qaar oo aad ugu batay waa sheegi doonaa sababaha waxa keenay marka cudurkaas sidaas loo yaqaan Titore hadaba waa maxay safmarka cudurka daacuunka uu sameeyo wallahi safmarka uu sameeyo waxay tahay waa cudur aad u faafa micnaha saameyn ku yeelan kara meesha ku dhaca community-gaas oo badan hadaysan ka hortagin aad u micnaha u faafa micnaha laga yaabaa familka ama halka qoys oo ku dhaco inuu dhowr qofood ka affect gareeyo ama ka saameeyo taas waa cudurkan loo yaqaan outbreak oo sameeya micnaha outbreak hadaa maqsho waa cudur micnaha safmarin sameeya ee dilaaca cudurrada kamid ah wadankeena ayuu kamid yahay oo dilaaca bulshada sameeya marka cudurkan haddii aan u galno meelaha badana uu saameeyo ama uu ku dhaco iyo waxa keeno oo kaliya oo degi doona aad wuxuu u sameeyaa waa gobolada ay maraan wabiyaha ay maraan sida labada Shabeelle iyo labada Jubba iyo Banaadir oo daris la ah labada Shabeelle waa meelaha ugu badan oo cudurkani uu ka dilaaco oo safmar oo micnaha dadku wada saameeyo sababtuna waxay tahay marar badan waxa soo laabanayo in ay micnaha fatahaaduhu dhacaan fatahada waliba ay wabiyada badana fatahaan mararkaas oo badana cudurkan aad u dilaaca bulshadana oo ka soo muuqda waxaan umaleynaa marar badan waa nagu soo laabtaa waliba sanadka hadda bishii la soo dhaafay umaleynaa mar lagu dhawaaqay leeyahay cudurku uu dilaaca leeyahay in ka soo xaqiijin ay u baahneed marka meelahaas uu aad u saameeya haddaan u galo waxyaalaha keena ay saacida ama riskiska saaciiba waxa kamid ah waxaa ognahay sidii u burburtay dawladii dhexe ee dalkeena ay lahayd waxa la burburay caafimaadkii dagaaladii faraha badnaa waxay keeneen in ay burburaan health service ama adeegga caafimaadka bulshada taas ayaa keentay horta inay marar badan ugu soo laabtaan fatahaadaha iyo wabiyadii oo la hagaajin jiray aan la hagaajin oo qarar ka jabsaday oo biyaha fatahayaan kuwaasoo effectiga micnaha jeermis ku saameynaya ama qof kamid ah cudurkii oo biyihii ay bulshada isticmaalaysa laga yaabo inuu contaminated wax leeyahay ama uu jeermiskii saameeyo dan ay dadkii biyihii ay isticmaalaan ay gaaraan biyo ay wada cabaan for example wabiyada ceelasha musqulaha badana ay wadaagayaan waxyaalahaas oo dhan keenaya iyo sidii dawladii dhexe u burburtay dadkeen waxa la yiraahdaa 70% ma heli karaan waxa loo yaqaan biyo nadiif ah iyo sanitation ama nadaafad ma heli karaan taasna waxay ka tahay qayb weyn ay ka tahay sidoo kale waxa qayb ka ah waxa la yiraahdaa isku socodka oo badan cudurkan oo dilaaca waxa la rabaa sida saxda markuu dilaaco in dadka takoor lagu sameeyo Soomaalideenu takoorku ma way ku adag tahay waxa arkay marka movementiga ama dhaqdhaqaaqi oo bulshada bata wuxuu ka sii qayb qaadanaya cudurka inuu faafo
marka sababahaasaa keenaya in marar badan marka cudurkii oo nagu dilaaco oo soo laalaabto oo safmar uu noqdo. haddaba maxaa sababa cudurka daacuunka? okay, haddaan si gudaha u galo cudurkan daacun caloolaha waxaa sababa hore usoo sheegnay bacteria loo yaqaano jeermis aan dhihi lahaa jeermis loo yaqaano Vibrio cholera O1 la yiraahdaa waxayna ku dhacdaan dhahnay dheefshiidka khaasatan mindhiciraha yaryar waxayna soo saartaa sababta qaabka ku affect garayso waxa waaye waxay soo saaraysaa toxin ama sun saameyn ku leh xuubka ku dahaaran small intestine wax loo yaqaan mindhicirada yaryar kaas oo ku sababayo mindhicirada yaraa inay soo daayaan biyihii fluid jirka ku jira qofka bini'aadanka ama fluidiskii inay soo daayaan oo qofkii marka uu la yimaado shuban biyood fara badan oo aad u badan maxaa la yihahdaa wax xanuuna aan lahayn urna aan lahayn sidoo kalena kalar ahaan u eg maxaa la yihahdaa waxaa loo yaqaanaa rice water stool loo yaqaana ama biyaha laga meero maxaa la yihahdaa bariiska kalarkooda kala oo biyaha caanaha camal ayay kalar ahaan u eg yihiin marka qofka wuxuu la imaanayaa cudurkaasi markuu ku dhaco bacteriadaasi ama jeermiskaasi shuban badan oo aad u badan iyo matag waa labada calaamadood aadka uu caanka ugu yahay cudurkan qofkana waxa dilaayo oo u dhimanayo waxay tahay ma ahan jeermisku waxa u dhimanaa fuuqbax qofka markuu wuxuu ku dili karaa maxaa la yihahdaa ii sheeg si degdeg ayuu ku dili karaa marka sababtaas waa cudurkaasi sida u affect gareen. haddaba sidee buu ku fidi karaa cudurka daacuunka? wuxuu ku fidi karaa ugu weyn waxay tahay waxyaalaha la wadaago sida biyaha iyo cuntada oo aad ugu gudbaa micnaha haddaad maqasho cudurkan koleeraha sababtaas waa sababta marka mar walbo bulshadu waxa ugu isticmaalka badan ay yihiin raashinka iyo biyaha waana meesha kaliya uu ku gudbo cudurkan maxaa la yihahdaa daacun caloolaha ama koleerada loo yaqaan. Tore haddaba ma lisdhihi karaa cudurka daacun calooleedka wuu ku fidi karaa cunada aanan si fiican loo karinin? inta badan Soomaalideenu waxay isticmaalaan cunada markii ay saacado badan ay taalo iyadoona la karkarin ay cunan. ma lisdhihi karaa cudurka daacun calooleedka halkaas wuu ku fidi karaa? waa runta waa meesha ugu weyn horta aan isdhihi karno oo aasaaska u ah fiditaankiisu waxa waaye nadaafadda oo aan aad u fiicnayn ama cuntadii qabow la cuno ama weelashii si fiican la iskaga nadiifin ama suuladii iyo ilmihii markay galaan iyo ama dadkii waaweynaa ama ay suuladii iyo raashinkii wixii dhan is ag yaalaan waa meelaha ugu badan oo ku fidi karo cuntada aan si fiican la iskaga karkarin aan la daboolin waa meesha kaliya oo ku fidi karo cudurkani oo ugu badan waxna laga hortagi kara ay tahay sababtaas waa sababta u fidi karo. Soomaalidu waxay isticmaalaan haddii qofkan haddii uu qabo cudurka daacuunka haddii uu la cabo qof kale biyo hal weel ma laga yaabaa inuu fido? inta badan Soomaalidu waxay caadaysataa qofkan hooyadii waaye walaalkii waaye saaxiibkii waaye biyaha way isla cabaan. ma xumo biyaha la isla cabo laakiin haddii dadku ilaaliyaan nadaafadu gacmaha qof walba uu iska nadiifiyo markuu suulada ka soo baxo haddii weelku daboolan yahay biyo waa la wada isticmaali karaa laakiin sida wanaagsan haddii caafimaadka la ilaaliyo waa laga hortagi karaa cudurka inuu fido laakiin bulshadeena uma samaysna si hadda u fiiriso oo weelkii biyaha ku jiro waxaa laga yaabaa inuu iska dabool feedan yahay qofkii asuusan macnaha gacantii iska nadiifin weelka gacanta biyihii gacanta geliyo sababtaas keentaba in cudurka annagu markuu dilaaco oo bulshadeena aad u soo rito sababtoo ah ma xagga fayadhowrka kuma fiicna wacyigelintuna way yar tahay sababtaas waa sababta cudurka dad badan nooga laaynayo mar walba oo abaaruhu bataan u badanayaan oo dad badanna u soo ridanayo cudurkani. inta badan Tore caruurta Soomaaliyeed waxay sameeyaan suulida markii ay ka soo baxaan ama musqusha gacmaha iyagoona dambas ama saabuun ama wax antibacterial ah iyagoona iskaga dhaqan ayay waxay cunaan cunno diyaarsaneed oo waalidiinta u soo diyaariyeen ayay cunaan. caruurtaasi maxaad ka dhihi lahayd? wallahi caruurtu waa horta dadka ugu badan ee cudurka u nugul saameyn badan oo ku yeesho oo haddii la yiraahdo dhimashaduna ay ku badan tahay caruurtu waxay u baahan tahay control cinaan la controlo musqusha bulshadeena waxaa malaysaa weli inay wax badan ka dhiman yihiin xagga isticmaalka suulida markuu qofka ka soo baxo waa muhiim inuu gacmaha inuu aad iskaga dhaqo oo wax
macnaha jeermiskaasi looga hortagaa oo isticmaala sida saabuunta dambasta taas waa waxa lama huraan ah oo qofku inuu sameeyo oo ku dadaalo ay tahay waalidkuna mar walba looga baahan yahay inay caruurta ku barbaariyaan inay sidaas isticmaalaan wixii ilmuhu waxay wax ka bartaan waa iskuulka ay wax ka baxaan waa hooyadu waa in ayada marka hore horta aqoon u leedahay haddii hooyadu taas ay ka dhisan tahay waxaan hubaa bulshadu inay badbaadiso hooyada wax ugu miisan ay tahay titore haddaba yaa khatar ugu jiro cudurka daacuunka wallaahi cudur daacuunka waxaa ugu jiro dadka badanaa meelaha aadka u buux dhaafiya degan sida kaamamka oo nadaafadooda aan fiicnayn maxaa la yihahdaa caruurta waa nugul yihiin qayb weynay ka yihiin maxaa la yihahdaa hooyooyinka uureyda ah sidoo kale waa dadka aadka ugu nugul iyo dadka waayeelada ah waa dadka ugu nugul ee cudurkaanu soo dila karo oo waxyeelay karo iyo waxa saaciidayo ah dadka aan haysanin maxaa la deegaano aan nadaafad badan lahayn sida kaamamka isku raranka ah iyo meelaha daafaha magaalada sida gobolka banaadir degan waa dadka u nugul sababtoo ah waxaa aad ugu yar ma heli karaan biyo nadiif ah iyo macnaha in mar walba lagula dadaalo si biyo nadiif ay ku helaan dadkaas waa dadka badanaa u nugul waana aragnaa bukaanada badanaa istaalka yimaado aad waxay uga yimaadaan meelaha xaafadaha isku raranka ah ayay ka yimaadaan saas waa marka waxa saaciidayo ah nadaafadu inay yar tahay weelashu labada isticmaalaya hal suuli waxa arkay qoysas badan hal suuli ka dhaxaysa marka taas waa qayb weyn ka ah cudurkan inay bulshadaasi ugu badato maxaa la yihahdaa degan meelahaas haddaba yaa ugu badan uu ku dhici karaa cudurka daacuunka markii loo fiiriyo dadka da-aada dadka waaweyn iyo caruurta ayaa ugu badan wallaahi caruurta ugu badan intaan arkay aniga caruurta aad ugu badan labadaba anaga istaalkeena waa lagu qabtaa waa lagu daaweeyaa percentage wuxuu aad ugu badan yahay caruurta aniga aan arkay iyo dhimashaduba ay caruurta aad ugu badan tahay mahadsani titore haddaba waa maxay dhibaatada kale ee cudurka daacuunka ee ku saameyn karto qofka qaba cudurkaani wallaahi saameynta ay ku yeelanayso horta cudurkan daacuunka waxaa waaye kow qofku ma dilaayo jeermiskani ee waxa uu horta dhibaateynayo waxyeeleynayo waa fuuqbaxa ku dhacaya qofkani oo ah jirkiisa inay biyaha ka baxaan oo biyaha kaliya maahna weliba macaadinta ay la socoto daas waa qofku waxa uu dhuminayo waxa waaye waa biyihii iyo macaadintii jirka ugu muhiimsaneed inuu dhumiyo ayaa keenaysa in qofkan waxyaalaha ugu badan saameyn ku yeelanayo hadhowtina fuuqbaxaasi waxa aan gadaal ka sheegi doonaa wuxuu keeni doonaa caqabado dambe uu keeni karaa macnaha mararka qaarkood weliba ku kala badan yihiin laakiin caqabado dambena wuu leeyahay haddana si degdega qofka loogu gargaarin oo wax looga qaban caqabada waxaa laga yaabaa xataa qofka noloshiisa dambe saameyn ku yeelayso inuu ku dhacdo way keentaa waana sababtaas waa markaa uu keeni karo cudurka mahadsani titore waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijka toddobaadlaha caafimaadka idaacadda simbe ee magaalada muqdisho titore sidee loogu hortagi karaa cudurka daacuunka ka hortagu intaan yar aan ka hadlin waxaan ka hormarinayaa oo ayadan aan isleeyahay muhiim tahay sidee ku garan kartaa qofka macnaha qofku sidoo ku garan karaa cudurkan horta muxuu ku fahmi karaa calaamadaha lagu yaqaano intaan hortagu ka hadlin calaamadihiisu marka waxaa la yiraahdaa waan sheegnay horta waxa ugu badan shuban biyood oo aan dhahnay biyaha bariiska u eg laga miiray maxaa la yiraahdaa marka qofka fuuqbax ku dhaca calaamadaha fuuqbax lagu garanayo taas waa shiisho aan soo sheegnay fuuqbaxa calaamadaha lagu garanayo waxa kamid ah ogaalka qofka waa muhiim in la ogaado qofka waxa laga yaabaa xaaladiisa deeqatada in ogaal ku waayo ama ogaalkiisu isbedelo ama uu dabaqsanaado indhaha caruurta kala inay indhaha godgalaan calaamadaha lagu yaqaan inuu cunug fuuq baxay sidoo kale in afku qalalo cunugu maqaarkoodu qaasatan calooshu inuu waxa loo yaqaan target skin target lagu arko ama calooshu ay biyo ka baxaan waxyaalahaas aad lagu yaqaanaa kaadidoo yaraato waxyaalaha aadka loogu yaqaana calaamadaha lagu garto inuu qofkaani fuuq baxay ayay ka mid tahay calaamadahaas marka haddii qofku waalidku ama qofku weyn oo isku arko inta badan caruurta weliba aan ka hadlayo inay si degdega wax loogu qabto waxna loogu macnaha loogu gargaaro ama meesha ugu dhow ee la heli karo markaas caafimaad ay lagala gaaro intaas ka horeysana in ay guriga naftirkiisu wax looga qaban karo haddii ay heli karto hooyadu waxay ku fuuq celiso cunuga inay sameyso haddii ay dhowta gadaalan kaga hadli doonaa ka hortagu haddaan u galo sidee looga hortagaa cudurkan daacun caloolaha wallahi waxa ugu muhiimsan waxaa kamid ah in
la kontaroolo maxaa leedahay koleeraha ama infectionkii ama iyo la control sidee lagu kontaroolayaa waxa loo yaqaano biyo nadiif in la helo nadaafad in la helo maxaa leedahay nadaafadda lagu dadaalo maxaa leedahay sheeg sidoo kale in la train gareeyo ama la tababaro dadka caafimaadka ka shaqeeya loo tababaro cudurkaani iyo sidii la tacaamuli lahaayeen xataa bulshada haddii la tababaro xataa ay ka naftirkooda waa qayb weyn ka yihiin in la badiyo qaybaha caafimaadka ee lagu hortago lagu gargaaraya xanuunkan ama CTC da loo yaqaano santaradaas in la badiyo waa very important waxaalahaas lagu hortaga iyo in la helo hadda waxaa la helaa sidoo kale vaccine looga hortago dadka meesha cudurkaani uu nugul yahay ama uu ka dilaacay in waxa loo yaqaano oral maxaa loo yaqaan vaccineka loo yaqaan oral cholera vaccine waa talaal looga hortago cudurkaani oo dadka u nugul la siin karo oo lagu badbaadi karo marka sababaas looga hortagaa qofka qaba cudurka daacuunka complicationka ama waxyaabahu ka cabanayo maxaa ka mid ah haddii la yiraahdo caqabadaha uu keenayo horta wuxuu cudurkaani qofku u dilaan dhahnay fuuqbaxaasi sometimes waxaa ka dhasha caqabado dambe sida in qofku sokorta jirkiisu ay dhacdo macaadinta qaar ugu muhiimsan oo jirkeenu qaybo weyn ka ciyaara inay dhumiyo taas oo saameyn dambe ku yeelata sida kuwa loo yaqaan waxaa ka mid ah potassiumka midka loo yaqaano oo aan ognahay haddii qofku wax badan uu shumo inuu dhuminayo wax badan ka mid ah sababtan hadhowtan ay waxyaalaha potassiumkaasi uu ka saacido waxaa ka mid ah xataa garaaca wadnaha oo saameyn ku yeelan karo qofka fuuqbax maadaama ku dhaco fuuqbaxu waxa ugu horeeyo oo saameeyo waxaa ka mid ah keliyaha waana hadhowta waxaa laga yaabaa haddaa qofka uu xaalad xun u galo ama shoog u galo in keliyaha dhaawac uu ka soo gaaro oo sometimes keliyaha xataa ay fadhiistaan oo u baahdo in sifeyn keliyaha loo sameeyo oo u baahan kara xataa waa caqabadaha uu keeni karo laakiin mana badno laakiin wuxuu keeni karaa sometimes caqabadaha keliya cudurku kama imaan kara wuxuu kaloo ka imaan karaa daaweynta haddii si qaldan loo isticmaalo for example waxaa laga yaabaa qofka fuuqbaxa ku dhacay ee gradeeka saddexaad maraya ama digriga saddexaad ama severe dehydration haddaan dhaho ama fuuqbax zaa'id ah cunugu waxaa lagu fuuq celiyaa macnaha xidid afku inuu wax ka qaado waa laga yaabaa oo laga fuuq celiyo in xidid laga siiyo macnaha fluidkii haddaan la marka fluidkaas la controlin waxay ku keeni kartaa haddii fluidkii in kantii loogu cunugan la rabay ama qofkan la siiyo haddii looga badiyo ama uu ka bato inay ku keento in biyaha jirkiisu ay ka bataan meesha marka hore uu fuuqbax ahay haddana uu markaan dhinaca kale u gadoomo oo biyahaasi jirkiisa galaan ama sanbabaha galaan oo dhibaato u keeni karto waxay ka imaan kartaa daaweynta oo si fiican loo controlin taasna way ka imaan kartaa caqabadaha ugu waaweyn ay ka mid tahay badanaa fuuqbaxa ku dhaca bukaanka ay ku dhaci kara saameynta ku yeelan kara sidee qofka yacni markii uu qofka qaba cudurka daacuunka markii la siiyo fluid badan oo laga siiyo IV-ga wuxuu sababi karaa pulmonary edema macnaha waxaa waaye maxaa leedahay ii sheeg haddii qofku xididada arooraha laga siiyo fluidka weliba wuxuu haddii intii loogu talagalay in ka badan oo qofku macnaha fluidkaas la siiyo waxay keeni kartaa in sanbabuhu biyo ay galaan waxaana lagu yaqaanaa badanaa lagu garan karaa in qufac badan qofkii lagu arko neeftu ay dhibto maxaa leedahay indhuhu ay soo bararaan ama buffy eyelid loo yaqaana indhuhu wareega indhaha inay soo bararaan maxaa leedahay ii sheeg barar lugaha hoose lagu arko dhawaaq haddii feeruula dhegaystane in shanqarta loo yaqaano crepitationka ama lagu arko ama lagu dhagaysto marka waxaalahaasaa lagu yaqaanaa in qofku biyuhu ay ka bateen ama ay fluidka la siinayo oo xadka dhaafay oo ay jirkiisu ka bateen sababaasaa lagu garan karaa waa in lala tacaalaa oo qofkaasi fluidka laga istaajiyaa maxaa leedahay haddii loo baahdo sometimes kaadibadayaasha in la siiyo xataa la siiyo haddii laga furso waayo because qofkan khatar u geli karaa biyaha jirkiisa ka batay haddaba waa maxay daawada la siin karo qofka qaba cudurka daacuunka daawada haddaan ka hadalno daawada cudurku waxaa waaye marka hore horta waxaa ka horeeya daaweyntu marka hore inaad horta qiimaysaa qofkan ma fuuq baxay mise ma fuuq bixin calaamadii hore usoo sheegnay inaad qiimaysaa then daaweyntu waxay ku xiran tahay fuuqbixiisu meesha uu taagan yahay fuuqbaxa marka waxaa laga hadlaa kuwa aan fuuqbax lahayn laakiin shubanka leh fuuqbax aana jirin kuwa fuuqbax dhexdhexaad leh iyo kuwa aada u daran
saddexdaas badan loo qaybiyaa ilaa sometimes kuwa kale afraad lagu soo daro oo ah qofka inuu shoog galo ama xaalad khatar u galo waa suurtagal marka kan aan fuuqbaxa lahayn oo laakiin shubanku leh waxa u baahan yahay in fuuq celin loo sameeyo horta marka hore wax awal shay intaan daaweyntu la gaarin waa in haddii istaal la joogo in la hela takoor waa very important in isolation la hela ama takoor la hela oo bukaanadan la takoora oo laga ilaaliyo aad bulshadii kale caafimaadka qabtay si aysan ugu faafin cudurkaani marka waxaan dhahnay haddii uusan qofka fuuqbax lahayn calaamadaha fuuqbaxna uusan ka muuqanin waxaa la sii karaa biyaha ama ORS waxa loo yaqaan ama biyaha lagu fuuq celiyo macnaha ka kooban macaadintii iyo fluidkiba waa la sii karaa inta badan qofka noocaas ay daawada dil la siiyo waxa kale la siiyaa kaniiniga zinkiga loo yaqaan oo qayb weyn ka qaata maxaa leedahay in dhaawac soo gaaray xuubku inuu soo reysto qayb weyn ka qaadanayo cudurkiina ama shubankiina aad u sii kala dheeraanayo ka saacidaya zinkigaas iyo qalajiyo haddii laga shakiyo inay keentay iyo jirto kolera ama daacun colaaleed oo jirona wuxuu u baahan yahay bukaanka sidoo kale qalajiyo in la siiyo qalajiyaha waxay ku xiran tahay qofka da'da oo jiro ma qof weynba ma caruurba ma uuriya waxyaalaha laga fikiraya qofka weyn inta badan uuriga ahayn hooyooyinka aan ku jirin uurka leh waxaa la sii karaa kaniiniga doxycycline loo yaqaano 300 mg hal mar ayuu qaato caruurta 12 sano ka weyn doxycycline 4 mg la sii karaa haddii 12 sano ay ka yihiin caruurtu aysan qaadi karin kaniinigu waxaa la sii karaa sharobooyinka oo sida ay ka mid yihiin erythromycin syrupka ureyduna waxaa aad ugu fiican oo la sii karaa azithromycinka 1 gram hal maalintii hal jeer waxaa kaloo muhiim ah in markii fuuq celin loo sameeyo qalajiyaha la siiyo zinkiga sidoo kale la siiyo waxaa muhiim ah oo bulshadeenu aad iyo aad ugu dhiban yihiin oo ay caado ka dhigteen qofka markuu fuuq baxo waxaa lagu dhahaa wax cunto yaa la siin waa si shuma macnaha asoo qofkii nafaqo u baahnaayo jirkiisa nafaqada ka baxdo oo u baahan yahay nafaqo ayaa waxa arkay iyadoo laga joojinayo ama ay isticmaalayaan leeyin wax qaleel hal la siiyo waxba kama jiraan xoogaa fikirkaas waa laga fiican yahay qofku mar walba wuxuu u baahan yahay nafaqo aad u badan in la siiyo ayuu u baahan yahay maxaa leeyahay waa very important taas waxyaalaha aan aad ka dardaarmayo waxa aad kale isticmaalo waxa kamid ah markuu qofka fuuq baxayo gareedka koowaad soo maraa haddana waxa laga qaban gareed labaad soo gudba haddana waxa laga sii qaban gareedka saddexaad kan koowaad oo kale guriga hooyada cunuga waa ku xallaysan kartaa kan labaad mar hadduu cunuga soo gudbo waa inay si degdeg ah ula soo gaartaa meesha caafimaadka ugu dhow ee heli karto ama isbitaal ha ahaato ama clinic ha ahaato ama MCH meesha ugu dhow ee la gaarsiin karto because wuxuu galayaa xaalad khatar ay u gudbooya bukaankii mana ahan hooyinku waxa arkaysa in guriga cunuga lagu la daahayo marka saameyntaas asaas keentay haddii guriga ay joogto hooyadu waxa caado aad u badan aan aragnay ee qofka markuu fuuq baxo in biyo caadi la siiyo xogaa waa laga fiican yahay biyaha caadigu ma u soo celinayaan qofkii aan wixii ka dhumo oo macaadintii biyaha ah waxaa fiican in ORS la siiyo ORS haddaysan heli karin xataa guriga ayay ku diyaarsan karaan oo qaab loo diyaariyaa jirto for example cusbo waa laga heli karaa guriga sokor way taala biyo nadiif ah waa la heli karaa haddii loo baahdo intaas laga sameyn karaa ORS ma aha ORS ma haysanin biyo caysaas u sii inaad dhahdo for example haddii la rabo inaad diyaariso ORS hal litr oo biyo ka diyaari kartaa waxa ku dari kartaa qaandadan shaaha lagu qaso aad ku yar haafkeeda oo cusbo ah ama 2.5 gram ah ka kooban 6 qaando oo qaandada hadda aan sheegayo sokor ah ayaa waxa ku dari kartaa hal litr oo biyo ah waa isku qasi kartaa sidaas ayay waxay kugu diyaarsan tahay oo aristii guriga ku diyaarsatay meesha biyo caadi ah ka sii leed bukaanku taas ayaa ka fiican inaad siiso oo kadib aad bukaanka ku soo gaarsiiso haddii xaaladda uu fuuq bixiisu daran yahay isbitaalka la soo gaarto ma fahantay sababtaas waa marka qaabka loogu badbaadi karo bukaanka doctor bal ka waran dadka inta badan Soomaalidu waxay sameeyaan qofka markuu aad u fuuq baxo waxa la leeyahay hal la siiyo caanagelka wax ma u dhibaa cudurkan wallahi caanagelku wax hadda gooniya u dhibi karo aan maqlay ma jirto maxaa leeyahay ma ogaado qofku markaasi horey caanagelku uusan macnaha ugu fuuq macnaha dad waxa jira caanageela markay cabaan ama fuuq bax isku arka ama caloosha socodkeeda badiya kulli anigu macnaha daawo u yahay ma dhihi karo maxaa leeyahay waan u daran yahay ma dhihi karo sababtaas ma fahantay laakiin dadku waa arkay badan inay aad u isticmaalayaan waxyaalaha
titore aad baad u mahadsan tahay. Haddaba waxaynu isla soo gaarnay guntiyo gabagabadii barnaamijka toddobaadlaha caafimaadka idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho. Titore, haddaba waa taladaada iyo dhegeystayaasha inta badan ku taxan barnaamijka toddobaadlaha caafimaadka ee idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho, taladaada iyo bulshada iyo dhegeystayaasha. walaa talada bulshada aan siinayo waxay tahay inay mar walba ku dadaalaan nadaafadu waa nadaafatu nasul iimaana layiri, waa qayb weyn ay ka tahay diinteenu nafarayso. wax badanna aan uga badbaadi karno, cudurro badanna uga badbaadi karno in aan nadaafada ku dadaalno. wax ka fiican ma jiro, ayadaa awal shay ah oo qayb weynna ka ah diinteenu nafaraysaa. taasaan kula dardaarmi lahay bulshada inay ku dadaalaan mar walba ay saas ku ilaaliyaan si uga badbaadaan cudurradan faafo oo kan ka mid yahay kuwa kale oo badanba ay ku yimaadaan nadaafad darrida. marka nadaafadda inay ku dadaalaan bulshada ayaan kula dardaarmi lahay, iyo inaan kula dardaarmo haddii dadku cudurkan lagu arko inaan guryaha lagu haysanin oo cunugii xaalad aan wax laga qaban karin ama xaaladiisu darantaa guriga lagu haynin, in sida ugu dhaqsiyaha badan mar walba ay ku gaaraan goobaha caafimaadka. aad baad u mahadsan tahay Titoor Jibriil. ururka caafimaadka kaasi wuxuu ahaa Titoor Jibriil Xasan Cawaale oo toddobaadkan marti igu ahaa barnaamijka toddobaadlaha caafimaadka idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho. isla markaana toddobaadkan aan isla falanqeynayno cudurka koleerada ama Soomaalidu inta badan sidee u taqaano cudurka daacuunka. ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo. ururka caafimaadka ururka caafimaadka guud ahaan dhegeystayaal waxaan halkaasi ku soo afmeerayaa barnaamijka caafimaadka idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho. barnaamijka intuu hawada ka baxay waxaa soo saaray isla markaana idin la socodsiinaysay anigoo ah Baaji Cabdullaahi. Salaad Baaji Ismaarto waxaa dhanka farsamada ka qaabeynayay injineer Sakariya Cabdullaahi Maxamed. intan barnaamij ceenkan oo kale aan dib ugu kulmi doono waxaanu idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo. ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo. ururka caafimaadka ururka caafimaadka